السلام عليكم صاحبي الكسول وهذا مقال عصب مقال كان مدحن قاننا سيدا وكسو كردين كرتا لقب سوماليا أما وصول درسن كرتا موبيل كايا مسي أكتهي إن سوماليا لوصول در لقب سوماليا أي سأقوصتي شركة سو سارتو موبيل كان أندريو مركا ديب انتو تجيو جمعة waxaad dib u qoran taariikhda qaybta taariikhda waxa uu qoran jimca oo jacna la soo gaabiyey sidoo kale labada bisha iyo tobanaad yacni bisha 12aad waaye marka labadeeda marka sida ugu soo darsan kartaa adigana waxaad soo galaysaa marka setting waxaad soo galaysaa setting kadibna waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay waxaad imaanaysaa general management kadibna waxaad kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay Somali language hadda waxa ii saaran Soomaaliya ii saaran hore oo soo doortay marka meeshaas languages meesha ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa ma adi Soomaali kuma qorno English in laga yaabo inay ku qoran tahay marka languages ay ku dhufanaysaa ay ugu horeyso kadibna waxaad dhaysaa add a language marka hadda Soomaaliya ay ugu qoran ugu darsan marka saan ugu soo daro luqadan aan kugu tuso English ayaan kusoo darsanayaa marka English ayaa set default current ka dhigaa marka kadibna luqadan Soomaaliya iska dilaya si aad ku tuso qaabka aad soo saaran lahayd marka remove ayaan iska dhig kadib waxaad dhahayaa marka add language kadibna waxaa calaamadda oo saddexda dhibic ee geeska ayaan taabanayaa kadibna all languages ayaan dhahayaa halkan ayaan raadinayaa marka luqadda Soomaaliya marka Soomaaliya ayaa tagaa meel ay ku qoran tahay hoos u wad ilaa ay soo gaaraysay qeybaha saa halkaas aad ugu jeedid waxaa meeshan yaalo Soomaaliya ayaa ku qoran kadib ku dhuf meeshaas kadib wuxuu ku soo saari doonaa luqadda Soomaaliya wadamada loogu hadlo yacni hadda waxaa loogu hadlaa 4 wadan Ethiopia, Djibouti, Kenya, Soomaaliya waa dhulka Soomaaliya meelaha ay kala qaybsay marka Soomaaliya dooro kadibna waxaa dhahdaa wuxuu ku dhihi doonaa keep current man kaaga dhigaa oo yacni hadhow ma adiga kusoo darsanaysa mise set as default yacni adiga si automatic ma kugu darnaa meesha oo luqadda kood ma kaaga dhignaa marka set as default dhah si aad u dhahday marka wuxuu qoraalka horta Soomaaliya meesha marka qoraalka meesha ku qoran Soomaaliya luqad yar ee qoraal yariisa ka hooseeyo marka wuxuu ku dhahayaa luqadani uma bandhigna yacni kuma shaqeynayso applicationada qaar yacni meelaha qaar kuma shaqeynayso qoraalka yar ee hoos ku qoran wuxuu dhahayaa marka luqadani kuma shaqeynayo applicationada qaar kaliya hadda waxaan adeegsanaynaa inuu noo soo sheego af Soomaali ahaan noogu sheego dheedka iyo waqtiga marka sidaan luqadda koowaad ayaa ka dhiganaysa haddii sidan ku tahay sidaas ayaa ka dhigaysaa kadibna waxaan tuuraynaa marka luqadii dambe waayo luqadii dambe Englishka haddii ku jirto haddaan kor soo dejiyo tusaale waad ujeedaan Friday 2 December ayaa qoran marka luqadda English ayaa tahay si aan ugu dhigo markaas Soomaaliya waa dileedayaa Englishkan kadibna remove ayaan ku dhahayaa meeshan remove kale ayaa sii dhigaysaa deetana sidaas ay ugu saarto waxyar haddii sugno marka waxaa soo bixi doonto luqadda Soomaaliya koraan soo dejinaya marka sidaad ujeedaa marka halkan waxaa iga soo baxday jimco 2 December yacni weli waxa ka khaldan hadda laakiin haddaan soo dejiyo waa si saxda ah loogu talagalay marka jimco 2 bishii 12aad waaye marka sidaas ay ugu dhigin kartaa luqadda Soomaaliya fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar inaguna soo biir haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqatay muuqaalkan daawatay una share garay asxaabtaada si ay uga faa'iidaan una ogaadaan in luqadda Soomaaliya lagu soo daray mobilka waxyaabo qaar uga faa'iideysan karaan